bedeli karo habsocodka taariikhda. Dalka Mareykanka ayaa sanadkii 1955kii xilli galab casir liiq ah, gabar madow dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Rosa Parks soo raacaysa bas. Rosa waxay ka shaqaynaysay dukaan yar oo dharka lagu tolo. Waxay ahayd dawaarle ama harqaanle. Shaqadeeda ayay ka soo rawaxday, waxa ayna u socotay gurigeeda. Markii ay baska soo fuushay ayay fadhiisatay kursi markaas bannaanaa. In yar kadib waxaa baska soo fuulay nin caddaan ah, horteeda ayuuna soo istaagay si ay kursiga ugu banayso. Xilligaas dalka Mareykanka waxaa jiray xeer sheegaya in dadka madowga ah ay waajib ku tahay inay kuraasta ugu kacaan dadka caddaanka ah marka la joogo goobaha dadweynaha sida basaska, isbitaalada, iskuulada iyo meelaha kale oo lagu nasto. Waqtigaas Mareykanka waxaa hoy u ahaa cunsuriyad, takoor aad u daran. Rosa waxay qaadanaysaa go'aan geesinimo leh oo sabab u noqon doona in malaayiin madow reer Mareykan ah ay ka baxaan takoorka iyo dulleysiga ay ku noolaayeen. Waxa ayna goosanaysaa mowqif ah in aysan kursiga ugu kicin nin caddaanka ah. Waxa ayna jebinaysaa qaanuunkii dulmiga iyo joorfalka ku dhisnaa ee sanadihii kontomeeyadii ka jiray dalkeeda. Dadkii caddaanka ahaa ayaa baska saarnaa ayaa ku kacay. Darawalkii baska waday ayaa joojinaya, waxayna ay ku qasbayaan inuu booska ugu kacdo ninka caddaanka ah ama ay ka degto. Gabadhii way diiday. Rosa ahayd inay baskii ka degto. Kadib waxaa loogu yeeray booliska. Booliskii way kaxeeyeen. Waxaa lagu ganaaxay lacag inay bixiso. Ganaaxa lacagtiina way diiday. Xabsi ayay gashay. Xabsigii markay gashay waxaa kacay oo ku dayday dadkii madowga ahaa. Waxaa dalka Mareykanka ka socday banaanbax qaatay 381 maalmood ilaa go'aanka maxkamadda sare ee Washington sanadkii 1956 kaas oo mamnuucay midabta koorka lagu sameeyo basaska. Kadib sanadkii 64 waxaa soo baxay sharciga xorriyadda madaniga ah kaas oo mamnuucay takoorka ku saleysan jinsi oo idil. Waa hal gabar oo qaadatay hal go'aan kaas oo bedelay habsocodka taariikhda.